halku dhiga sheekadeennan waxa la yiraahdaa waa kuma qofka adduunyada ugu hodansan waa hubaal haddii weydiintaasina la dhex dhigo in badan oo inaga mid ah weyn ku kala duwanaanaynaa warcelinteeda ama jawaabteeda qoloba meel iyo aragti gaar ah ayay ula kacayaan in badan oo idinka mid ah hubaal waxa ku jawaabi doontaan rag ay ka mid yihiin Larry Page, Elon Musk, Bill Gates iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah ragga adduunyada ugu lacagta badan laakiin sheekadaynu soo qaadanayna ee barnaamijkeenani waa Bill Gates oo markaasi waliba ahaa xilliga aynu soo qaadanayno ninka adduunyada ugu taajirsan oo la weydiiyay ma tahay ninka adduunyada ugu qanisan ama ma jira qof ka qanisan maadaama adduunyada ugu lacag badan tahay jawaabtii uu bixiyay waqtigaasi iyo sheekadii uu ka sheekiyay ayaa noqotay mid dad badan taabatay isla markaasina sheeko caana noqotay oo dad badan ay ka sheekeeyaan haddii aynu soo qaadano mar qof ka mid ah dadkii waray ama dadkii la kulmay ay weydiiyay ma jira qof ka hodansan Bill Gates waxa uu ku jawaabay waxa jira qof iga hodansan waxa jiray buu yiri oo ka sheekeeyay nin xilli ka mid ah xilliyada aanan anigu caanka ahayn buu 19 sano ka hor isla markaasina aanan haysan wax hantiya aan kula kulmay magaalada New York airportkeeda oo markaasi aan ka safrayay nin iibiyo joornaalada waxaan damcay inaan ka iibsado joornaal ama jaraa'id waqtigaasi uu ninkaasi gaday laakiin markii aan u soo holaday aan u dhaqaaqay inaan ka iibsado jaraa'idka waxaan waayay wax baaqi ah ama jajab ama lacag yar oo aan joornaalka siisto laakiin mar quraayaan ka dhaqaaqay oo aan ka noqday joornaalkii aan damcay ee naftaydu doontay inaan iibsado waxa iga soo daba dhawaaqay ninkii iibinayay ama joornaal gadihii oo igu yiri maxaad uga tagaysaa waxaan ku yiri ma hayo baaqi ama jajab ama lacag yar oo aan siisto joornaalka wuxuu igu yiri qaado waa aniga xaggayga xisaabtu waan ka diiday laakiin wuu igu qasbay waan qaatay waana safray 3 bilood kadib mar kale ayaan safar ku maray garoonkii magaalada New York oo dabcan ah magaalada Mareykanka ugu weyn ee dhinaca ganacsiga mar labaadkii aan maray New York ayaan mar kale damcay inaan ka iibsado jaraa'id isla ninkii markii aan damcay haddana jaraa'idkii ayaan lacag ka waayay jeebkayga aan siistay jaraa'idka intaan salaamay ayaan ka dhaqaaqay mar kale ayuu iga soo daba yeedhay ninkii jaraa'id gadaha ama joornaal gadaha ahaa waxaan ugu yiri qaado xisaabtu waa xaggayga markaas waxaan ku yiri ma hayo wax lacag ah wuxuu igu yiri aniga ayaa isku qoraya waliba taasina waxay muujinaysay inaanu isagu meesha lahayn ee uu shaqaale ka ah sheekadaas waxay ahayd buu yiri mid qalbigayga taabatay oo aan ilaawi kari waayay waqtiyo badan 19 sano kadib oo ah buu dhawaan markii xilligaasi wareysiga laga qaadayay ayaan dib ugu noqday ninkii dib u raadiyay isla markaasina aan ugu tagay halkii uu ku sugnaa ee uu ka shaqeynayay ee joornaalka waan soo dul istaagay waxaan weydiiyay bal inuu garanayo wuxuu ku jawaabay inuu garanayo oo aan ahay ninka adduunyada ugu hantida badan ama ugu lacagta badan waxaan weydiiyay may si gaar ah may garanaysaa wuxuu yiri waxaan hadda ka hor 2 jeer kugu caawiyay jaraa'id waxaan ku yiri haddaba waad fiican tahay waxaan u soo noqday inaan ku abaal celiyo oo aan ku siiyo abaalka ama abaal celinta abaalkii aad waqtigaasi ii gashay wuxuu igu yiri ma awoodid inaad ii abaal celiso waxaan ku yiri waayo waxaan ku dhiibayaa check aad ku qoran kartid lacag inta aad doonto oo adigu aan ku ogolahay qadarka ama inta cayimato oo aan ku siin doono xataa malaayiin dollar haddii ay tahay wuxuu igu yiri may waxaan u jeedaa ma awoodid inaad ii abaal celiso waayo waqtigu uu kala duwan yahay anigu waxaan ku caawiyay waqti aan ahaa faqiir oo aanan waxba haysan adigu waxaad i caawinaysaa waqti aad tahay ninka adduunyada ugu hanti badan markaasi way adag tahay waanay kala duwan tahay oo marka aanad waxba haysan way adag tahay inuu qofku qof caawiyo deeqsinimada runtiina waa taas sheekadaas weli maskaxdayda kamay bixin isaga oo marka horeba ninku abaal igu lahaa taas daraadeed ayaan ku leeyahay anigu ma yihiin ninka adduunyada ugu hodansan ee waxaan ahay ninka ugu lacag badan ninka adduunyada ugu hodansan waa ninkaas diiday malaayiin dollar check ay ku qoran tahay waa ninka diiday in uu lacag qaato isla markaasina qalbigiisu siiyay in uu ku bedesho deeqsinimo iyo gobonnimo bedelkii uu lacag qaadan lahaa ninka go'aansaday in isagoo aan waxba haysan wixii uu haystay ee yaraa uu wax ka bixiyo markaasi waxa uu Bill Gates yiri ama hadaladii la taabashada qalbiga sida weyn u galay ee laga dhaxlay ama laga diiwaan galiyay wareysigaasi waxa kamid ahaa
qaninimadu ma aha intaad lacag haysato balse waa inta qalbigaaga deeqsinimo iyo wanaag ay ka buuxdo. waa qiso run ahaantii cajiiba oo muujinaysa ama in badan been ka sheegaysa jawaabihii bilowgii hore weydiintii aan idin weydiiyey haddii aad kaga jawaabtay qofka adduunka ugu hodansan mid ka mid ah tujaarta adduunka. Bill Gates waxa uu leeyahay waxaanay lacag goyn ayaa mar kasta jira. waa hagaag qisadaasi waxay ahayd qiso cajiiba oo Bill Gates aynu ka soo xiganay. Bill Gates haatan ma aha ninka adduunyada ugu hodansan. Elon Musk iyo rag badan oo kale ayaa haatan ka lacag badan ma hubo kaalintuu ku jiro. laakiin waxaa jira qisooyin badan oo kale oo Bill Gates la xiriira. mar kale ayaa la weydiiyey waraysi ay haweeney wariyaahi ay ka qaadaysay mid ka mid ah telefishinada waaweyn ee dalka Mareykanka. Bill Gates waxaan ku weydiinayaa waa maxay sirta ka dambaysa guusha weyn ee aad gaadhay maadaama oo aad tahay ninka adduunyada ugu hanti badan. dabcan markaasna waxa uu ahaa ninka adduunyada ugu taajirsan xagga lacagta. waxa uu jawaabtii ay ka sugaysay uu ku bedelay inuu jeebka gacanta geliyo oo uu ka soo saaray jeeg bannaan oo dabcan ay lacagta aad doonto aad ku qoran karto. wuu dhiibay wuxuu yidhi waxaad doonto ku qor. bedelkii gabadhaasi waxa ay ku jawaabtay waad i qalad fahantay. anigu waxaan ku weydiiyey su'aal qura oo ahayd waxaan ku weydiinayaa waa maxay sirta ka dambaysa ganacsigaaga. mar kale waxa uu Bill Gates u soo taagay ama uu soo fidiyey jeegii oo ay ku qornayd ama ay ku qoran karaysay lacag inta ay doonto. ma dhicin haweeneydii mar kale ayay ku celisay su'aashii ay ku tiri anigu lacag uma baahni waxaan ahay wariye shaqadaydu waan ku wareysanayaa ee iga jawaab su'aasha. waxa uu ku yidhi hadda ayaan haddaba su'aasha kaaga jawaabaya. sirta ka dambaysa aniga guushaydu waxa weeye ma dayicin weligay fursad iga hortimi sidaad adigu hadda samaysay. waxaan kuu soo taagay jeeg aad lacag inta doonto ku qoran karto balse waa dayacday. weligay anigu maan lumin fursadaan lacag ku samayn karo. Bill Gates wuxuu sidoo kale leeyahay xigmado odhaaho iyo weliba hadallo cajiiba isaga oo marar badanna ka jeediya muxaadarooyin ama lectures jaamacadaha oo dhalinyarada u hoga tusaaleeya una tilmaama sirta guushiisa ama sirta ganacsi ee qof kasta uu samayn karo. Bill Gates sidoo kale waxa uu leeyahay shirkadda waa hay'addan idhaahdee Bill Gates Foundation ee sida weyn u caawisa wadamada faqiirka ah ama dunida saddexaad oo lacag badan ama balaayiin dollar uu ku caawiyo. qisada Bill Gates maxaad adigu ka faa'iiday adiga dhinacaaga?